مدن مدحويني وحان سلامة يا مدن مدحويني يا مروي سقارية مدن سعيد عيسى قوليه سوى وزير هذا انت نلا صعوتا هكذا جوكتا مانتا يو قولها وزير هذا دولة الفدرالكا baarlamaanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland saraakiisha booliisku halkan nala joogta maanta meesha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda salaadiinta iyo marti sharafta kale iyo bahal saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh oo mar walba allah ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan u mahadcelinayaa oo si gaar ugu mahadcelinayaa waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa dowladda goboleedka Puntland uu madaxda u yahay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo shacabka reer Puntland sida diiran oo wanaagsan ay igu soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigayga runtii waxaan iloobi karna ma aha هذا تاجرنا هاي وبرشلة شعب وينها عرض يوصل دويين سيدا ديران ووالتني ماذا له الصومال ماذا له كنتي وواح ولقين اللوبي دورين تاسنا وحي كترجمة يسا دولة جعالك يصومال المدينة إيوه من المدينة يكترجمة يسا وهم madaxweynaha hadalkiisa uu yiri wali anu meesha ma imaan oo Puntland ma imaan oo markii ugu horeysay waa runtiis inaan fakar aan qaaday fakarkan qaaday yaan wax yar rabaan inaan soo koobo fakarka aan ka qaaday waxa weeye koow Puntland inay tahay meel nabadeed inay tahay dadkeedu ay jecel yihiin Soomaalnimada iyo dawladooda jecel yihiin meel soo dhaweyn leh muxibbo leh waaltinimo leh Soomaaliyeed taas waxaa muujinaya qardo markaan tagay boqolaalo kun yaa ay soo dhaweysay waxaan halkaas lagu siiyey hadiyad faras ah kasoo tagnay oo aan nimid waaciye iyagoo waxay siiyeen geel haddana waa maqlaysaan wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda inuu siiyey macnaheedu waxay tahay waa isku kay dhacsan tahay marka صورتك بالوان هالكلمة هذا وأنا استغربتي هي فرس يقولي كفتن وهي كترجمة يسا حقيقة كترته قلنا يسمى المدينة اليوم جعلت لنا يدور جعلت لنا يسا وأنا رواينا هذا يقصوا قبل سفر بين بين السوقية dad badan baa xadceed iyo qorax noo taagan wax badan meeshan kama sheegi karno oo aan rabnay inaan idila qaybsanno aan halkan ka soo gudbino laakiin sanadkan waxay noqonaysaa sanad wanaagsan 2018 wuxuu noqon doonaa sanad dib u heshiisiin oo ummadda Soomaaliyeed ay soo keenayso ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed aan walaaleyno iyo noqonaysaa iyo هذا الير يهون بدن شقة بدن يجرينه دك هرمرك أو أشيكتين هلك كشيكتين يدو بعدين شقابه إلا بعدين هاي مالدشي إلا بعدين هاي إلا أبوه محن قرا الحوجيو أو هرمريو كان عصتها يوجدها تحصل كنتي وحيامها برينو إن صدق كان عن قبله وين وأن حسنتين وعن ربع هلك إن القدرة وزير صدره دولة ودولة شعب
idinkaana ka turjumaya inay tahay dowlad shacab sida aad noo soo dhaweyseen marka waa inaan sheegno magaalo walba inaan sheegno dadkaa soo dirsateen iyo siday noola shaqeeyaan xayir oo wasiirkaa soo dirsateen waa xildhibaankaa soo dirsateen runtii waa u qalmaa inuu ahaado qofka idin matalaya waxayna tegi doontaa doorasho xalaal ah oo qof iyo codkiisa tegi doontaa waana marka loo baahan yahay inaad ogaataan qofka idiin shaqaynaya oo dowladda kor u qaadaya iyo qofka dowladda majaxaabinaya marka waxaa idiin sheegaya xayar inuu si fiican idin matalo waxa uu ka hadlo oo u badan inta badan ay tahay dalihiina ee gobolka khaas ahaan maxaan ku raahdaa magaaladan boqol jeer ayuu igala hadlay inaan horumarino maxaan ku raahdaa deegaanka inaan horumarino inaan maxaan ku raahdaa horumarino Carmo magaaladan iyo xeradan booliiska ah saas darteed insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku soo noqon dib ku soo noqono wax alla wixii horumar ah aan sameynayno idinkuna qaybtiina aad ka leedihiin maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay inaan cadaalad sameyno Soomaa إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.